jilaagii caanka ahaa ee la odhan jiray Uday Jubra halkuu ku dambeeyay miyuu nool yahay mise wuu dhintay mise filimaantii ayuu iskaga fadhiistay jilaagan ayaa shaashadaha ugu dambeysay markuu soo matalay taxanihii caanka ahaa ee Doom 3 haddaba jilaaganu halkuu ku dambeeyay muuqaalkeena maanta ayaynu ku soo qaadan doonaa ee soo dhawaada jilaaga caanka ah ee Bollywoodka Uday Jubra mar ayuu ahaa jilaa aad loo jecel yahay oo taageerayaal badan leh balse hal mar ayaa shaashadaha laga waayay waqtigaasna taageerayaashiisu way niyad jabeen jilaagan ayaa soo matalay filmaan badan oo uu ka mid yahay filimkii jacaylka ahaa ee Muhabbatain waxaa kaloo ka mid ahaa filimkii taxanaha ahaa ee Doom laakiin xirfadiisa guulo badan kuma helin marka laga reebo jilista filimada jilaagan Uday Jubra waxaa dhalay filim sameeye Yash Raj Jubra waxa uu shaqadiisa ka bilaabay kaaliye agaasime waxa uu caawiyay aflaan badan oo ay ka mid yihiin Dilko Baagal He jilaagan Uday Jubra filimkii ugu horeeyay ee uu ka soo muuqdo waxa uu ahaa filimkii jacaylka ahaa ee Muhabbatain ee la daawaday 2000 ee ay matalayeen Shah Rukh Khan iyo Amitabh Bachchan jilaagan Uday Jubra filimkii ugu dambeeyay ee uu ka soo muuqdo waxa uu ahaa taxanihii Doom 3 ee la daawaday 2013 filimka wixii ka dambeeyay lama arkin jilaagan haddaba jilaagan Uday Jubra magacii caanka ahaa ee caan baxay ee uu ku matali jiray taxanaha Doom waxa uu ahaa Ali haddaba jilaagan ayay Soomaalidu magacyo badan u taqaanay waxay sidoo kale u yaqaaneen Feedhaweyne waxa sidoo kale ay u yaqaaneen Calina waa magacii uu ku matalayay taxanihii caanka ahaa ee Doom haddaba jilaagan Uday Jubra ayaa filimaanta ka fadhiistay waxa uuna nacay filimaan matalida jilaagan uu nool yahay weli muu dhiman waxa uu degnaa Los Angeles waxa uuna degnaa guri dabaq ah wararka Hindiya ka soo baxaya ayaa sheegaya inuu gurigiisii iibiyay 2018 mar uu yimi magaalada Mumbai ee Hindiya ayaa jilaaga laga qaaday sawiraan kadis ah jilaagu waxa uu u muuqday mid ay daadu ka daba timi waxaana ka muuqday isbedel weyn jilaaga ayaa u muuqday mid soo degaya magaalada Mumbai haddaba maxaad ka xasuusataa jilaagan nugula wadaag komitiga hoose insha Allah asxaabtayda qaaliga waa anigoo ah Maxamed Wardi Cali oo idin leh waynooyo muuqaalka xiga hadduu Ilaahay awood la ka dhigo